Assalaamu calaykum kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya haddii ay tahay markaaga kugu horeysay ee aad soo booqatid channelkeena subscribe dheh kadibna furo gambaleelka si aad u heshid wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay mahadsanid waxaa la filayaa in sanadkan gudihiisa uu dagaal xoogan dhex maro dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha khubaro dhanka militariga ah ayaa aaminsan in bilaha September iyo October ee fooda nagu soo haya uu dagaal militari dhex mari doono dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha khubaradan dhanka militariga ah ayaa si aad ah u saadaalinaya in dagaal xoogan oo faraha lagu gubto dhex mari doono labada dawladood oo ah kuwa hadda caalamka uga awoodda badan waxay aaminsan yihiin in marka uu caalamka ka soo jeesto la dagaalanka caabuqa dunida ku sii faafay ee corona uu dagaal dhex mari doono Shiinaha iyo Mareykanka khasaaro lixaad leh oo lagu qiyaasay $2 trilyan ayaa Mareykanka ka soo gaaray caabuqan sidoo kale magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka sida New York, Washington, Los Angeles iyo magaalooyin kale ayaa hawanaya waxaana meel walba yaala meydadka oo la waayay meel lagu kaydiyo dhanka kale Shiinaha ayaa markii uu ka soo kabsaday mushkiladda caabuqa corona waxa uu ku talaabsaday horumaro waaweyn oo dhanka dhaqaalaha ah maadaama ay soo saaraan qalabka lagula dagaalamo caabuqan hadda faraha baan ku haya Yurub iyo Mareykanka waxa Shiinaha uu bishan kaliya iibinta qalabkaas ka sameeyay lacag dhan $10 milyan khubaradan dhanka militariga ah ee saadaaliyay dagaalka ayaa sheegay in labadan sababood dartood uu ku bilaaban karo tan koowaad ay ku sheegeen inay tahay Mareykanka gudihiisa gaar ahaan madaxweynahooda Trump iyo doorashooyinka dalkaas oo fooda nagu soo hayo Trump ayaa ku khasaaray ama ku guuldareystay wax ka qabashada caabuqa corona oo dhulka la galay guulihii iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay 4 sano ee la soo dhaafay ka hor inta uusan soo shaac bixin corona Trump ayaa rajo weyn ka qabay in mar kale 4 sano oo hor leh dib loo doorto fiiriya sida dimuqraadiyiinta u siyaasadeynayaan fayraska corona waad garanaysaan fayraska corona miyaysan ahayn waxay isweydiinayaan sida Trump ula tacaamulay xaaladda inta badan siyaasiyiinta iyo shacabka Mareykanka ayaa hadda madaxweyne Trump dusha ka saaray mas'uuliyadda in la xakameyn waayo fayraskan maadaama halkii dawladdiisa dejin lahayd qorshaha xakameynta ay ku mashquushay u jawaabidda siyaasiyiinta dimuqraadiga sidoo kale Trump ayaa bilowgii markii uu soo shacbaxay gudaha Mareykanka caabuqan waxa uu ku jeesjeesay in uu yahay ciyaar ay wataan xisbiga dimuqraadiga si aan mar kale loogu soo dooran aqalka cad marka loo dareero doorashooyinka bisha November ee fooda nagu soo haysa fayraska corona waa dhagar cusub maya ma qaadi doono mas'uuliyadda haddaba Trump wuxuu si cad u diiday in uu qaado mas'uuliyadda ka dhalatay in corona uu ku faafo gudaha dalka uu madaxweynaha ka yahay taas bedelkeeda Trump waxa uu in badan ku celceliyay carabkan ku adkeeyay in cadawga kaliya ee uu dalkiisa leeyahay Shiinaha sababta labaad ay khubarada militariga ku sheegeen inay keeni karto dagaal dhex mara Shiinaha iyo Mareykanka inuu yahay dagaalka dhanka ganacsiga ee awalba ka dhaxeeyay ka hor inta uusan dilaacin fayraska corona Shiinaha waa dawladda kaliya ee tartanka ganacsi kula jirta Mareykanka ayaa dhowr mar Shiinaha ku eedeeyay ganacsiyo sharci darro ah sidoo kale wuxuu Shiinaha ku eedeeyay burcada internetka iyo xadidda xuquuqda hal abuurka shirkadaha tiknoolajiyadda Mareykanka waxaan doonayaa inaan si cad Shiinaha u dhaho kadib sanado ay bartilmaameedsanayeen warshadaheena ay naxadayeen hantideena iyo fikradaheena hadda sheekada waxay soo gaartay dhamaadka ka hor intuusan soo shaac bixin corona Washington ayaa qaaday dhowr talaabo oo ka dhan ah Shiinaha Mareykanka wuxuu canshuuro xad dhaaf ah oo labalaab ah ku soo rogay badeecooyinka Shiinaha sidoo kale maamulka Trump ayaa gudaha Mareykanka ka ariyay dhowr shirkadood oo ay ugu weyneed shirkadda telefoonada Huawei inkastoo intaas oo dhan waxay dhaceen ka hor inta uusan soo shaac bixin fayraskan haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxay noqon doontaa talaabada xigta ee uu Mareykanka ka qaadi doono Shiinaha kadib markii uu bishan la kulmay guuldaradii ugu weyneed ee ka dhalatay caabuqa corona kaasoo dhulka la galay dhaqaalihiisa dhanka kale khubarada militariga oo soo qaadanaya hadal uu dhawaan jeediyay wasiirka difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa aaminsan in